بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركب كواد مرحومين تان مدنتي وشهيدي وكشهيدي شقة الدولة أيقو دبر قوني حمانته iyo hadii la ay ku roon yahay daroogada ilaahay ha u naxariisto marka labaad waxaan ka tacsiyeynaa geeridaas ku timid si tiiraanya leh anagoo ku hadlaaya qoyska la xamanahay waxbay geysteen aad baan uga xunahay raallina kamaanaan ahayn laakiin toodii baa soo dhammaatay oo sidaas ma ay dhaafeen xilligoodii baa soo dhammaaday ehelkii ay ka tageenna waa uga tacsiyeynaynaa samir iyo iimaan allaha ka siiyo waxaan kaloo uga tacsiyeynaynaa guud ahaan dowladda puntland ciidanka daraawiishta khaasatan madaxtooyada iyo ururkii ay ka tirsanaayeen baan uga tacsiyeynaynaa waa dad waxa weeye khamridu waxa weeye umul khabaa'ith weeye wax xun oo dhan hooyadood weeye in la dabar gooyo marka waa shay daruuri ah oo waajib ah qofkii marka ka shaqaynayay wuxuu noqonayaa qof ummadda u adeegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka dadka ugu fiican waxa weeye anfacahum linnaas midka dadka anfaca niman dadka anfaca bay ahaayeen intaasi waa tacsidii iyo aragtida aan ka qabno waxaan kaloo ku darayaa kelmad ah annagu xalayta waxaa dhacay howlgalka xalay dhacay annagu qoys ahaan waa soo dhawaynaynaa waa taageersannahay waana ku faraxsannahay boqolkiiba boqol موقف كدولته كقبت الله بقول وكسرنا ويا سخاص بأننا نوردبين مجاعهنا شريتان كيجينا وحقوقيست مركينا وحكا قبلنا وحلاقة قبته خالي ما نقول هاي دولته وكتاجر سنة وحن كلو رباها كاننا كشيء فلكي ساكن عاي وحلي نبى وحلي الإسلام تبحي يقول لك ده وحيري عبرته سنسارية تقنية ماشوا سيد واحد بيسوق يتربضي هذه دجال دعي هي خلف بين اللي يجري قفل بور ميسنا يا هرت حوجا يا مان أنا سبحان الله لكن ساكت دجال كان نقول شقق معنا الهين دجال غير خلف بيهاي ما هين دجال قويس كنت شضي ما هين وحوير عن رالي كنا هينا ما هين وحن كوجنا عسلنا ما هين كوجنا عسلنا هاي لما المجرمين أو دروجستين دجال حسوا قاضي أو صور أو وير كجستي شرع الإسلام كوحي كقبته بان كقبنا أنا أقول ما إن نتروى كشقي مساجد بكسر بحي وقدمي حاشا لله ما نعينه إنه قدر واحد عي واحد شراء عدودار واحد شراء اللي يطهر كان قبته رعي كوكسي درا واحد عي أو فوش حما إنه قربستا قدر على جميع أبدا وكحنا هاي وقولي وقول بان كحنا هاي هل قضب أفراد عن قدر أي واحد تاني أنا قلت تاجر سن واحد كبعد تلابوي كدولة أي قاعد دونتو تلابوي كدولة أي قاعد دونتو هذا كبعد وتاجر سنة وحنا لو جبنا هي ومعلومات أو تاجرة أو قرب ديار بانونا عيدا أنا عيدا كي مذق حنيا اللي قلت شوقا ولا إسكور قبا عيدا إيه بابور يتكني كوالنا كمتشرات بري بيكيه ميل بيكو حريسين أنت عفرت ودها كوفشو سوشيال ميديا حقشو غير خلف بري وكيا وأنا كحيا وشاهد دولتنا وقرب تاجرنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan ugu tacsiyeynaa marxuumiinta dhimatay sargaalka madaxtooyada iyo askariga kale ilaahay ha u naxariistaan leenahay gacan ka xaqdare baa dishay howlgal ayagoo ku jira shahiidiin weey ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu jannatul firdaws siiyo mid kale waxa weeye hadalkii uu yiri nabadoon Faysal ku noqon maayo hadalkan leeyahay waxa weeye kooxdii falka geysatay oo dambiilayaashahay shifo ma ahayn qabiil ma ahayn ummadda in laga soo qabto baan raalli ka nahay dambiilayaal weeye dambiiluhuna cidna kuma aftirsado waxaana aan ugu mahadcelinaynaa dawladdu inay soo gurmatay meel walba difaac kaga jirto howlgal ku jirto waxaan rabnaa nimankaa in la soo qabto cadaaladda la hor keeno hadday ku dhintaanna aysan beeshu raalli ka tahay بني بيش رالي كرتهاي وحن كلو بينينا إن أي كوتشيران بيش الدجال وحن كلو بينينا إن وحجرمد أو أي ليهين أي سنشرين وحن الله الدجال لما هي ده كوي أبترسين هيين بعد الدجال كقوة ووضع وحنا الدولة إن كل يجلو إن كل يجلو ده كدروج استيال بكم أبترستان
criminal bay ku aftirsadaan dambiilayaal bay ku aftirsadaan waxaan rabnaa dawladdu inay ku dhiirato ay si kastoo ay ku qaban karaan iyo si kastoo lagu heli karo ay dawladdu u fasaxay intaasaan caddaynaynaa. bismillahi raxmaani raxiim inaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun inaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walba way dhimanaysaa naf walbana wakti bay leedahay ilaahi subxana wa tacaala saraakiisha meeshaa ku aasan ilaahi subxana wa tacaala ha u naxariisto intay ka dhinteen ilaa qoys ilaa iyo qabiilo ilaa maamul asxaab ciidamo dhammaan samiri baa allah ka siyan lena iyagana subxana wa tacala waa loo duceeyay ilahi ducada hawaa aqbalo hadalku waa intii ay yidhaahdeen qabiilku waana intii fiqigu uu yidhi beel ahaan iyo qabiil ahaan go-aankan dalka lagu wanaajinayo oo waxun lagula dirirayo annagu gacantaanu taagnay waa hore wixii meeshaa ku dhinta oo fidmo ku dhintana annagu qabiil haddana beri baan ka naha waxaa sidii loo ballan qaaday qabiilku ballan qaaday baan dawladdu garab taagana naf iyo maal cod waa la garab taagana anago dilaadno intaasaan ku ducaynaynaa ilahi subxana wa tacaala dadkay ka tagayna allah xanaaneeyo qabriga allah u wanaajiyo shafeecada intaa meesha u timid allahu aqbar subxana wa tacaala aad baa jazakum allah khayr jazaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون وعن كتعسينا تعسيتي رانياله كيريدي كتمد إذا مدي قرنكا وهولقال الله إدمدي فليني وعن لا يجعل الله نحرسته dowladda puntland oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo dhammaanteed iyo reerkii hoose intaba samari iyo imaan allah inaka siiyo iyagana allah u naxariisto ilaahay janna firdowsa ugu bishaareeyo waxaa kaloo intaa ku darayaa arrintan dhacday waxay ahayd arrin dowladda laga codsaday waxaa ka fekeray oo soo gudbiyey beesha reer khalaf inay meeshaas xumaanta hadda maraykan ku caanbaxday iyo dhulkii dadka laga gaday oo la haystay aysan qabiil ahaan u haysanay beri ka yihiin waxay ka soo qoreen qoraal waxaanu la qaadanay annagoo ah beesha cumar axmuud iyo isimadeeda waxaanu u bandhignay dadkii deganaa gobolka dhammaan isimo iyo waxgarad waana la qaateen howlgalkan waxaan caddaynayaa inuu ahaa howlgal dowladda laga codsaday dhammaantayana aan wax ka ogeyn wax kasta oo xumaan wadana in laga wada jiraa muhiima waxaanu taageersanay in wax laga qabto meel kastoo nabad noqota oo wanaag ku soo noqota rag dhiiggiis bay ku noqotaa annagoo ka xun raggaan waxay ahaayeen raggii loo idmaday inay wax ka qabtaan dhimashadoodana aad baan uga xunnahay laakiin waxaan ku taageersanayaa dawladda khamrada iyo dadka dhibaatada wada inay gacan ka geystaan oo wax ka qabtaan annaguna ma codaanna waxaan caddaynayaa inaan ogeyn howlgalkaas wax xun oo dhan lagula dirirayo wax xunna aanaan ogolaynan raalli ka ahayn codsi shacabka ka yimidna uu ahaa arrintan qabiilkuna uu beri ka ahaa hadduu qabiil u ahaan lahaa dagaalkan ama reer khalaf ku diri lahaayeen intaa ma qaateen dagaalka cid kasta way dareemi kartaa reer khalafna beri buu ka yahay cumar maxamuud beri buu ka yahay reer mudug beri bay ka yihiin intaasaan kusoo koobaya hadalkaygii aad iyo aad baa umahadsantihin salamu calaykum waraxmatullah